قبيلة أورمان إسوتنا إن أنت رايون قبيلة أورمان إسوتنا كلكو بينو لا تايلية كلكو بينو لا تايلية قوية ويا لو تسالي محاتقان قوية ويا لو تسالي محاتقان لو تسميا محاتقان waa qaybteennii koowaad ee barnaamijkeena ahaa sida shaqo loo helaa sida shaqo loo hantaa qaybteena koowaadna waxaynu ku eegaynaa bal shaqadu shaqay maxaa tahay oo in shaqada laftigeedii la sharxo oo shaqadan la raadinaya halkay taallo la sharxo oo nooca ay tahay la sharxo oo cidda haysa la sharxo waa muhiim marka sanad kasta la joogo baryahan dambe oo dhan gaar ahaan bisha September waxaad arkaysaa dhalinyaro kumanaana oo wiilal iyo gabdhaba leh oo ka qalin jabinaya jaamacada dhalinyaradaasi sanadba sanadka kasii dambeeyay tiradoodu way badanaysaa waxaana aad moodaa inay xawli ku socoto tiradu oo ay 2 laab iyo 3 laab ay usii kordhayso jaamacadihii soo saaraya kasoo qalin jabinayayna way kordhayaan dugsiyada laftigoodiina way sii kordhayaan taasi waa guul waxay ku tusaysaa sida mujtamaca iyo waalidka iyo ardayda iyo ummadda iyo dowladda iyo cid kastaaba ay ahmiyad u siinayso tacliinta iyo in horumar laga gaadho laakiinse marka ay dhalinyarada jaamacadaha kasoo qalin jabinaysaa sii tiro bataanba waxaa iyana barbar socoto dhibaato kalood moodoon in iminka uun lagu soo baraarugay balse markii hore aad moodo inaan la qorshayn oo markii hore qorsho u ahaa uun tacliin hala dhameeyo waxa la barto carruurtu iyo walaamida taagnaan iyo khasaare keenin iyo dhibaato keenin iyo meelo kale isku tuurin aqoon ha barteen iyaga anfacda oo ay mustaqbalka ku yigsadaan oo ay shaqo ku helaan laakiinse marka ay dhalinyaradaasi soo qalin jabisay iminka warwar badan baa iminka waalidkii iyo dhalinyarada laftigeedii iyo dowladdii iyo jaamacadaha laftigoodiiba soo food saaray oo ah dhalinyaradan waynu wadnaa uuna waxun bay baranayaan way yaacayaan way socdaane xagee lagu socdaa mushkiladda jirta waxa weeyaan halkii lagu socday baan sharax cad lahayn inteena badan waa laga yaabaa inaan idhaahno waynu garanaynaa oo waxa way tahay shaqo laakiin de shaqoy maxaa tahay halkee taala yaa haya miyaa la iibsadaa yaa bixin karaa dhalinyaradan 5,000 iyo 10,000 iyo 20,000 isu soo daba socotaa halkee shaqada ka helayaan shaqadu taala qodobka u baahan in la qorsheeyo si aqoon iyo aragti ballaaran ba lagu eego horta waa qodobka qofka dhalinyarada haddaad weydiiso ama markaa jaamacad dhameeyey ama laga yaababa de in markaa jaamacad ku jiro sanad u harsan yahay ama dhamaystiiba ku dhow yahay ama lababa u harsan yihiin oo aad weydiiso tirada marka dhamayso jaamacadda maxaad doonaysaa inaad noqoto ama imika dhamayso maxaad doonaysaa shaqaan doonayaa baa odhan inaad shaqaysto laakiinse haddaad sii weydiiso ood hoos u sii raacdo tirahdo shaqada aad rabtaa waa maxay runtii uma cadda waxoogaa yaryaro da meelahan wasaarad dowladeed oo laga shaqeeyo ma laho ama wakaalad dowladeed oo laga shaqeeyo shirkad weyn oo waddanka joogto oo laga shaqeeyo ama xawaalad ama telefoon ama hay'ad ajnabi oo waxyaabo sidaasa mooyaane uma cadda waxa uu rabo iyo halka uu ka rabo iyo cidda haysa taasi uma cadda waxaad moodaa in isaga ilmahan ama gabadh ha noqda ama wiil ha noqdeen la saaray oo mas-uuliyadda ah dadaal oo dadaalkaaga ku soo saar inaad aqoon fiican yeelato oo aad dadaasho oo aad darajo fiican keento oo aad jaamacadda dhamayso marka dhinaca laga eego xilkiisi uu ka soo baxay ilmahan xilkiisi uu ka soo baxay laakiinse si fiican uguma cadda halka ku socdo markaad eegto waalidku dee ilmahaaga la dadaalama isaga ka ahay ilmahaagan qeyrkii la tartamaya ee iskuul soo dhamaysta ee raba inuu dadaalo ee wax barto mustaqbalka wax noqdo la dadaal marka waalidka laftigiisa xoogugama fakirin halkuu ka shaqayn doonaa shaqo u heli doonaa bal horta la dadaal ayay de ka ahay jaamacadaha laftigoodu waxay xoogga saareen carruurtan tacliin bara tartan bay galeenoo tartanka waxay ku galeen tayada inay tacliin tayada carruurta siiyaan ayay tartanka ku galeen laakiinse xaggii shaqada xoog umay eegin
shaqadan carruurtan marka meeshan ka baxdo waxay qabanayso marka xafladaha jaamacada la xidhayo haddii goor waxa ka soo qayb gashay madax dowladeed oo ilaa halka u sarreysa ilaa halka u hooseysa ama wasiirro ha noqdeen ama madaxweyne ha noqdo ama agaasimayaal ha noqdeen ama madax kaloo mujtamacaaba ha noqdeen oo dee dowladdu shaqeyna dee ama guurtiya ama salaatiina ama cuqaala ama odayaal dhaqameeda ama tijaara waa laga soo wada qayb galaa kulligood way wada booriyaan way dhiirigeliyaan waxaanay farxadaanay la qaybsadaan laakiinse aad u adagta inaad maqasho qof hogaamiye ah hogaamiyaha dowladdu kama wada dee dowladdu iyo waa ka kowlaagsanta cid kasta hogaamiye kastoo kale oo sheegaya exactly halka carruurtan ay ku dambeynayso soo dhammaysatay jaamacadu horta marka waxaa lagu wada jiraa sawir fiicanba lama haysto shaqadan waxaa lagsa lagu jiraa dadaala in shaqo la rabo dhallinyaradana wax baratay farxaddiina la qaybsaday farxadda laakiinse waxaa ka dambeeya walaac badan iyo niyadjab badan haddaba waxay u baahan tahay intaasi markaan hordhac uga dhigo inaynu fahmno shaqoy maxaa tahay halkee taallaa siday ahayd intaynan taa u gelin waxaa muhiima inaan dib u noqono oo aan dib u raacno in nidhaahno intii aanay burburin dowladdii soomaaliya ee ka horreysay 1990 wixii ka horreeyey arday kasta oo soomaaliyeed meel kastuu joogo xilligaa oo dugsi sare dhammaysta dowladda ayaa u ballan qaaday ama inay shaqo siiso kii aan shaqo helin inuu jaamacad helo mas-uuliyaddaasi waxay ahayd mas-uuliyad dowladdii soomaaliya ay ballan qaaday oo arday kasta oo soomaaliya oo dugsi sare ka baxa uu shaqo helayo marka qofku markuu helo ama jaamacad buu helayo intii aan jaamacad weydaana shaqay helaysa shaqadaasina waxay ahayd shaqo dowladeed oo ah ama wasaarad ama wakaalad ama hay-ad ama meel kaloo dowladdu shirkad iyo warshad dowladdu ay wax ku leedahay halkaasaa loo kala shaqo tegi jira qof ka warwari jiray oo xil ka saarnaa dhallinyaradu siday shaqo u heshaa muu jira waalidkuna kamuu saarnay ardaygana kamuu saarnay cid kalena kamay saarnay dowladda ayaa mas-uul ka ahay ardayda jaamacadda gasha wixii shaqo tegay maaha inta jaamacadda gasha arday kasta oo jaamacadda dhammaysta oo soomaaliya wixii ka horreeyey 90 iyo wixii ka horreeyey inuu shaqo helo waxaa ballan qaaday dowladdii markaa jirtay hadduu jaamacad hiblaayo kasoo baxo ku takhasusay waxaa hay-adaha iyo wasaaradda ku takhasusay baa la geenayay haddii uu kasoo baxay jaamacadda macallimiinta kuliyadda macallimiinta dugsi sare ama jaamacadana wax ka dhigaa la geenayay haddii uu injineer ama farsamo yaqaan aha warshadaa la geenayay ama wakaalad kalea la geenayay haddii uu kasoo baxay xisaabaad iyo wax lamida waxaa la geenayay meel uu xisaabiye ka noqdo yacni saasaa loo kala qeybin jira qof ka warwaraya intuu jaamacad kasoo baxo inuu shaqo waayaa may jira laga yaaba shaqooyinku de inaan ahayn sidii la wada rabay iyo quruxdii la wada rabay aanay lahayn ama de lacagtii la wada rabay mushaarkii la rabay aan laga qaadin laakiin mas-uuliyaddaasaa lahayd oo maxay ku dhacday markaa isweydiin leh wax kasta oo adeega iyo horumara ee uu dalku lahaa dowladda lahayd waqtigaa hadda wax kastood ka fakirto wax yar maa sheegin dukaan yaroo qof haysta iyo taxi yaroo qof wada iyo waxaa maa sheegin laakiin wax laali wax adeeg oo dhan markay noqoto masalan kasoo qaadaba tusaale isbitaal oo dhan dowladdaa lahayd meesha doonaha ku yaallo tuulaha ku yaallo magaalaha ku yaallo caasimada ku yaallo isbitaal oo dhan dowladdaa lahayd marka qof kasta oo bartay wax isbitaalkaa ku shaqo leh ama dhakhtar ha noqdo ama kalkaaliye ha noqdo ama mid kaloo shaqaale caafimaad ha noqdo dee dowladdu ma loo shaqaynaya ilaa isbitaal oo dhan xitaa dawada soo dejinteeda dowladda wakaalad dowladdu leedaha lahayd oo dawada soo dejinaysa iskuul oo dhan dowladdaa lahayd marka laga reebo mid iyo laba dee iskuullada caalamiga ee dadka ajnabiga dhigtaan iskuul oo dhan dowladdaa lahayd marka qof kasta oo doonaya in iskuul wax ka dhigaa dowladdu u shaqaynayay jaamacad oo dhan dowladdaa lahayd sida u dhantay marka qof kastoo shaqo rabaa dee jaamacad kasoo baxay halkaas u shaqaynayay diyaarad oo dhan dowladdaa lahayd marka dee dowladdaa loo shaqaynaya qofkii diyaarad ka shaqaynaya dowladdu u shaqayn telefoon dowladdaa lahayd dowladdii baa loo shaqaynaya de waxaad shay kastood soo xitaa maacuunka wakaalad maacuuna jirto soo dejisa sigaarka dowladdaa soo dejisa cuntada dowladdaa soo dejisa injibaa soo dejisa marka waxa weeyaan marka noloshii oo dhanba ay dowlada xukunto dee dowladdaa loo shaqaynayay marka waxay ahayd wax meel loogu hagaagale oo ahayd dowladay caruurtaa soo baxday dhalinyaradaa soo baxday ardayda jaamiciyiinta soo baxday aqoon-yahankaa soo baxay hala siiyo shaqo dowladdaa siinaysa iminka markii 90 wixii ka dambeeyey dowladdu waxba ma hayso in yar un bay haysaa dowladdu
بحيث أو حوجا أما عسكرة أما بليسة أما محكمة يو حوجا معلمين يتعدوا شغالة كلوها يسوي دو ساردية بينها كشقية لكن أم بدنين كوا سنة قار ده وحقالا كرا أو بحس أو ما ركت مانتا شغالة بدن قالا كرا ما تو حلقة بين سنة كي بقول كيبا شن شغالة عصر أي قاتن ده مثل قالا كرا كونتون بقول لبا بقول صدق بقول أفر بقول شغالة عصر الدولة شن بقول بدي ده إمس دي waxa laga hadlayaa 5,000 10,000 20,000 30,000 arday soo baxay 300 laga qaatay 500 laga qaatay ka fahmayso su'aasha markaa waxay ku tusaysaa horta shaqada la doonaya dawladii lama taalo horta taasi waa maskaxda la gashada wasiirkan ama qofkan kale madaxda ah ee xafladda xidhaya ee oranaya dhalinyaro soo dhawaada ee oranaya waan ku faraxsanahay qalin jabintiina horta waa inuu gartaa in shaqada laga hadlayo aan ahayn shaqo dawladda hayso ولا جاي عم إما أنا قارك ده دولة مشاريع فرتو ده هدي اللامية الله لسه يعني توعكر شقدي أي دولة قبل شفتي أو نوع وحي سجاشن كي وحي كوري وحي كعمتك وكشنت تشعبه أما وحي نقول ده ده برايفت تليفون كي برايفت بالي تتجار على ديارة دي تتجار على سكول دي بدن تتجار على اختار دي بدن تتجار على وحسود جنتي واحد بدن تتجار على ده واحد تنتشك تتجار على marka horta marka shaqo laga hadlayo waa inay cad tahay shaqada la doonayo in laga hadlaa inay taalo gacanta dadka gaarka ah dawladdu marka maxaa ku waajiba dawladdu laga yaabo inaan iyo dhalinyaradan soo baxaysa aanay shaqo u hayn inaan dhalinyaradan soo baxaysa iyadoo aanay ka fiin karin shaqo dawladda siin karin laakiin mas'uuliyadda koowaad ee inay dhalinyaradaas shaqo hesho waxay saarantay dawladda hadana iyadoo hadda aan hay'ad dawladda laga shaqeynay iyadoo aan maaragtay de dawladii lahayn dadkan shaqaalaysiiyo mushahar siiye mas'uuliyadda koowaad dawladda saaranta sida u saaranta dawladdu waa inay istaraatiijiyad samaysaa waa inay siyaasad samaysaa waa inay siyaasad cad jeexdaa oo dadkan shaqada halkii lagu siin lahaaya waxaa kaloo iyana sii jira shaqadii private-ka maba cad ganacsataa gacantii lacagta ku haysa iyagaa shaqadii wada laakiin ganacsatadii lacagta intaa leeg helaysay ee xoolaha badan intaa leeg haysay ee malaayiinta dollar soo dejinaysa bil kasta ee malaayiinta dollar macaashayay ganacsigooda waxay u maamulayaan sidii bakhaareyda farsamo bakhaarey bay ku wadaan iyaga laftigoodii shaqaalo badan ma qaadan karaan waayo systemka nidaamka u degsan yihiin ba farsamo bakhaar oo dad qof waxaad arkaysaa tee lagu odhanayo waa dadka u lacagta badan la waddanka ee malaayiinta soo dejiya bil kasta laakiin haddana haddaad u fiirsato sida looga shaqeeyo meel yaro dukaan yaro leeyo bakhaar yaro leeyo inan yaro adeeru yahay iyo gabadh yaro abtuu yahay in yaro sidaas mooyaane dee shirkad ma aha loo shaqeyn karo shirkadaha qaarkood way fiican yihiin ama de xawaaladaha qaarkood leh ama shirkadaha telefoonada leh ama qaar kaloo sidaasoo waxooga haykalkoodu qurux badan yahay laakiin intii kale ee ganacsigii dalka iyo dhaqaalihii dalku gacanta u galay meel laga shaqeyn karo oo sidaasoo jawi laga shaqeyn karo oo qof dhalinyaro oo jaamacad ka soo baxay laga shaqeyn karaa horta ma yaalo taasi markaa waxay keentay in dawladdiina aanay waxba hayn loo shaqeyn jirin ganacsatadii loo shaqeyn lahaana in yar mooyaane aanay kuba talagelinba inay shaqaalo qaataan taasi markaa maxay keenaysaa dhalinyarada wayse soo gaadhaysaa waa bam waa miino dhagaraysan waa bam taagan uu qarxi doonaa maalin مهمون بقرح دونا حلقة ما أنت دلك يشوفون لبعضهم كم ودنا يرى أو جامعة على كسب بحر سنة دبديد إن لبعضك كلام صوبي سنة دبديد لبعضك كلام صوبي دتكو سكتك تاجنا معي دتكو حرة بشق بالهرت مركز سبب كلامنا شقدي قعنت جنعسة لي كوجرتها قعنت برايفت كي كوجرتها كوا ديارة ده عليه كوجرتها كوا تليفون ده اللي كوجرتها كوا بقول لك مليون دولار الراشن كمان كاستقيمينية لكن هذا الحفيسيل ودي تكتب خارج أي طبعاً قفوا أديروا هي طبعاً كلا حمالين نسك أكتاج مو يعني عن شقالة وشقية شركة هواوين بقولك المليون كل الرجع الله هين حفيسة شرعية وشقية الله هين اختروا وشقية شقالة ودوية يوقف كنتو كلا ده فايل صوب شلون وتجيو دكتور على بدي سكلا سو تجي سيدي بخاريدة كسرعة ما يسون تولدوا مركاو تكوا جبك أسد شقو أبو رئيسا وهنا هرت جناح سجل الله لحلا وين جناح ستدي الله الله وإن نظام لو سمايا وإن شرع لو سمايا
وأن دليل هذا لفت كذا لو تخان تقيال الريحة والله إذا هذا واحد مقالة يا لو حاسة كوشة قيسته عشر كل حاجة يعني كذا هذا دونا بالشقوين كيالي أرمها سيسري لوجر رومين لها الشقوين كاسل لوجر دقلها وحرونا أو لما نافعات محرجين 10 كاسك نافعه السلام عليكم إن أنت رايون قبيلة أردن إسوتنا إن أنت رايون قبيلة أردن إسوتنا كلكو بينو لا تايلية كلكو بينو لا تايلية قبيلة ويا لو تسالي محاتقان قبيلة ويا لو تسالي